kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogta shiine oo ku soo gudbino wararka ugu dambeeyay ee arrimaha Soomaalida iyo xogaha caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa qodobo aan ku soo qaadan doono Ruushka oo Duqeyn Xogan ku qaaday dalka Turkiga, sida ay xulafada NATO uga walwalsan yihiin tartanka u dhaxeeya Faransiiska iyo waliba dalka Turkiga ee ku sii dhawaanaya dalka Ruushka, iyo saaxiibtinimada ka dhaxaysa Faransiiska iyo dalka Ruushka oo maraysa halkii ugu sareysay, iyo warbaahinta dalka Turkiga oo qiraya in xidhiidh wanaagsan oo muhiim ah uu dhexmarayo Ruushka iyo waliba dalka Faransiiska marka la eego dhammaan faylalka ay iskaga hor imanayaan dalka Ruushka iyo dalka Turkiga oo ay isku dhinac ka yihiin Faransiiska iyo waliba dalka Ruushku iyo xogo kale ay dhageysan doontaan. Ruushka iyo dalka Turkiga waxay wajahayaan dhinacyo badan oo iska soo horjeeda, kala aragti duwanaanshaha laga bilaabo Liibiya ilaa iyo dagaalka Azerbaijan iyo Armenia. Suuriya, diyaaradaha Ruushka ayaa astaan u ah dhimashada dad rayid ah. Dagaal xoogan iyo duqeymo lagu qaaday Syria oo u muuqday duqeyntii ugu xumayd ee cirka ee ay geysteen dalka Ruushku Idlib Isniintii, iyada oo garaacday xero military oo tababar ah isla markaasna dishay tobaneeyo ka mid ah xogaga mucaaradka ah ee ay taageerto dalka Turkiga. Muuqaallo lagu baahiyay warbaahinta ayaa muujinayay duqeynta Ruushku ay ka geysteen halkaas, inkasta oo warbaahintu ay soo tabisay in 30 qof ay ku dhinteen oo ay jabhadaha ay taageerto dalka Turkiga duqeynta diyaaradaha Ruushka. Haddana telefishinka dalka Turkiga ee TR ayaa sheegay Moscow waxay sheegeen in ugu yaraantii 50 xubnood oo ka tirsan ciidanka qaranka ee mucaaradka Syria lagu dilay halkaas. Dhacdadan dhiigga ku daatay ayaa muujisay in Ruushku uu dib u soo cusboonaynayo cadaawadiisa uu qabo mucaaradka oo martigeliya ku dhowaad 4 milyan oo qof, dhammaantoodna ay ka go'an tahay inaysan ku hoos noolaan taliska Ruushka iyo waliba Bashar al-Assad. Xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in duqeyntani ugu dambeysay ee Ruushka iyo isku dhicii Baku iyo Yerevan ee Azerbaijan iyo Armenia ee Nagorno-Karabakh ay qayb ka tahay in dalka Ruushka uu ka sii jeediyo dagaalka Nagorno-Karabakh dalka Turkiga oo ay isku xiran yihiin, gaar ahaan tan iyo markii Turkiga uu taageeray Azerbaijan. Dhaqdhaqaaqa ayaa mar kale ka dhigaya Ankara iyo Moscow wadada shilka isku dhaca tan iyo markii Armenia oo xulufo dhowla ah Moscow ay guuldaro kala kulantay dagaalka Azerbaijan iyo Armenia. Waxyaabaha aadka looga naxo ee Ruushka howlgalka Azerbaijan uu kala kulmay Karabakh waxa uu horseeday in Baku ay tallaabo u soo ceshato dhulkeeda ay qabsatay Yerevan. taasna waa waxa ay uga mahad celinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga iyo tiknoolajiyada casriga ah ee uu ugu deeqay Turkiga Azerbaijan. Warbixin lagu daabacay telefishinka rasmiga ah ee dawladda dalka Turkiga ee TR ayaa fiirinaya isku dhacyada dalka Ruushka iyo waliba dalka Turkiga iyo duqeynta inay sabab u ahayd dalka Ruushku cadaadiskiisa uu doonayo inuu sii xoojiyo dalka Turkiga. Lagalay oo ah falanqeeya ku takhasusay arrimaha khilaafaadka ee dalka Ruushka iyo dalka Turkiga ayaa yidhi waa wax macquul ah in Ruushku ay fareen u diraan Turkiga isagoo ka hadlaya duqeynta Idlib ee ay geysteen dalka Ruushku. falanqeeyaha waxa uu qabaa in Ruushku uu ka xanaaqay taageerada Turkiga ee Azerbaijan, inkastoo ay ku dhawaaqday dhexdhexaadnimo. Moscow waxay taageertay Yerevan oo ka soo horjeeda Azerbaijan iyada oo gacan ka geysatay xoogaga ku soo duulay Armenia inay la wareegaan ismaamulka Karabakh 1990-meedyadii, inkastoo ay qayb ka ahayd madax banaanida Azerbaijan dhulkaas. In weerarkan uu dhaco iyada oo wada hadallo dhinacyo badan leh oo ku saabsan dastuurka Suuriya oo ay taageerayaan Turkiga, Iiraan iyo Ruushka ay sii socdaan, iyadoo Moscow kaliya ay la wadaagaysay dalka Turkiga macluumaadka ku saabsan kormeerka wadajirka ah ee Ruushka iyo Turkiga ee waqooyiga Syria Idlib. In haddana ay Ruushku qaadayso bartilmaameedyada dalka Turkiga. Bishii Maarso taliska Assad waxa uu bilaabay in uu bilaabo olole xoogan oo naxariis darro oo ka dhana gobolka Idlib oo ay ku sugan yihiin malaayiin ka tirsan dadka reer Syria ee ka soo barakacay dagaalada Bashar al-Assad, isagoo keenay Ankara inuu maamulo qaybo ka mid ah waqooyiga Syria si loo joojiyo kooxaha argagixisada ah ee PKK iyo YPG inay ka hortagto dalka Turkiga inaysan ku soo dhowaan in xadka ka tirsan dalka Syria aysan ka dhisin dawlad Kurdiyiina.
laakiin ugu dambeyntii Ankara iyo Moscow waxay ku heshiiyeen xabad joojin in laga sameeyo gobolka Idlib si looga hortago masiibo bini'aadanimo iyo qaxoontiga badan ee suurtagalka ah inay u gudbaan xadka Turkiga, taas oo ka dhalatay ololihii military ee ay qaaday dalka Turkiga. inkasta oo Turkiga iyo Ruushku ay leeyihiin iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo dhinacyo kala duwan ah, haddana labada dal waxay si weyn isugu khilaafsan yihiin midka kale dhowr dagaal oo ka dhacay Liibiya, Suuriya, Caucasus, iyaga oo taageeraya dhinacyada iska soo horjeeda. sida lagu waramay, Turkigu waxay dhawaan ka baxday dhowr xarumood oo kormeera oo ku yaala Idlib, kuwaas oo dhulkooda ay la wareegeen xogaga maamulka Asad ee hoos yimaada kaalmada Ruushka iyo ololihiisa. inkasta oo ay ka baxday Turkigu, Ankara ma muujinayso calaamado muujinaya inay uga tagi karto gobolka naxariis darrada Ruushka iyo waliba taliska Bashar al-Assad, iyagoo ku xoojinaya meelaha qaar dalka Turkiga ciidamadooda. falanqeeyaha yeelinka Leglig waxa uu xusay in haddii loo hanjabo, Turkigu uu si adag uga jawaabi doono waqooyiga Syria, Ruushka iyo taliska Assad labadaba, iyadoo dhanka kale Turkigu uu wajahayo siyaasad weyn iyo khilaaf ka dhaxeeya Ankara iyo Paris. inkastoo Paris iyo Moscow ay muuqdaan in arrimo badan ay isku khilaafsan yihiin, haddana labadoodaba waxay og yihiin kuwo isku mid ah midka kale. iskaashiga ka dhaxeeya isku hormaadyo dhowr ah ee ka dhacay dagaalada Liibiya, Azerbaijan iyo Armenia iyo waliba dalka Syria, labada dalba waxay taageerayaan xoogga sharci darrada ah sida Liibiya, halkaas oo ay taageerayaan dagaal ooga Khalifa Haftar oo ka dhana xukuumadda Tripoli ee qaramada midoobay aqoonsan tahay, iyo Karabakh, halkaas oo ay taageerayaan Armenia. labada dhinacba iyagoo qayb ka ah kooxaha wada hadallada ee labada dal. tan waxay muujinaysaa in Faransiiska iyo waliba dalka Ruushku ay aad isugu sii dhawaanayaan xilliyadii dhawaa. Turkigu wuxuu taageerayaa dhinaca sharciga ah ee ku salaysan taageerada qaramada midoobay sida Azerbaijan oo loo aqoonsan yahay dhulka lagu dagaalamayo, iyo Liibiya oo ay taageerayso dalka Turkiga dowladda sharciga ah ee ay taageersan tahay qaramada midoobay. Suuriya oo horey u gumaysan jiray Faransiiska, madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ma uusan soo bandhigin calaamado qeexan oo muujinaya taageerada uu hayo taliska Bashar al-Assad, laakiin waxa uu si weyn uga soo horjeeday duulaankii uu dalka Turkiga ku qaaday kooxaha Kurdiyiinta, halkaas oo Paris ay taageerayso kooxda Kurdiyiinta ee ka soo horjeeda dalka Turkiga. Macron wuxuu tilmaamay sanadkii 2017 in Faransiisku uusan u arkin wax mudnaan ah calaamadaha walaaca leh. Macron waxa uu dhawaanahan kordhiyay hadalladiisa ka dhanka muslimiinta, isagoo ku dhawaaqay inuu ku kacayo dhaqdhaqaaqyo midigta fog ah oo sii kordhaya dalkaas, isagoo adeegsanaya luuqadda cilmaaniga ee adag, iyo inuu weerar ku qaadayo dadka muslimiinta ah, taasi oo ay ka jawaabeen kumanaan kun oo muslimiin ah oo dunida dacladeeda ku nool. tallaabada Macron ee dhanka midigta fog waxay u eg tahay in siyaasadda Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu u muuqdo mid xiriir adag la yeelanayo dhaqdhaqaaqa midigta fog ee Yurub, taas oo keentay inay isku sii dhawaadaan Moscow iyo waliba Paris. dhanka kale, sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Turkiga, siyaasad ahaan Ruushka waxa uu door bidayaa Faransiiska siyaasaddiisa cadowtinimada ee Islaamka uu qabo. marka la eego Ruushka oo la mid ah dalalka xilligani ka soo shaabaxay dunida ee sida adag muslimiinta dhibaatada ugu haya, khubaradu waxay u arkaan in xiriirka adag ee ka dhaxeeya Ruushka iyo Faransiisku uu u dhaqaaqayo mid cadowtinimo Islaamka ah oo midigta foga. Ruushka ayaa sidoo kale u muuqda inuu saaxiib la noqonayo dalalka midigta fog iyo sidoo kale Islaam nacaybka oo uu si weyn u taageerayo, sida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay isku dhow yihiin madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. si kastoo ay noqoto, tallaabadani bartilmaameedka ah ee ay qaaday dalka Ruushka ay ku dishay, siday sheegtay kontameeyada ka tirsan xogaga mucaaradka ee ay taageerto dalka Turkiga, ayaa waxaa si weyn uga xanaajiyay dalka Turkiga, iyadoo sheegtay dalka Turkiga inay qaadayso tallaabo jawaab u ah dalka Ruushka iyo waliba taliska Bashar al-Assad. dhanka kale, midowga Afrika iyo midowga Yurub ayaa kulan ay yeesheen waxa ay sheegeen in muqadas ay tahay madax bannaanida Soomaaliya, iyagoo muujinaya walaac qoto dheer oo ku saabsan xaaladda sii xumaanaysa ee amniga Afrika, gaar ahaan gobolka Saxaraha iyo Soomaaliya iyo dalalka doorashooyinku ay ka jiraan. midowga Afrika iyo midowga Yurub waxay si adag u cambaareeyeen weerarada ka dhanka dadka rayidka ah ee ay adeegsanayaan ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya iyo sidoo kale gobolka Saxaraha, oo ay sheegeen inay tahay in la ilaaliyo
dadka rayidka sida lagu sheegay biyaan wada jira oo ay soo saareen talaadadii inta lagu guda jiray kulankoodii ugu dambeeyay golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika iyo guddiga siyaasadda ee amniga midowga Yurub ayaa ka wada hadlay xaaladaha ka jira gobolka Saxaraha, Suudaan iyo Soomaaliya. midowga Afrika iyo midowga Yurub ayaa sheegay in taageeradan midnimada Soomaaliya lagama maarmaan tahay iyada oo la ilaalinayo madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya. midowga Afrika iyo midowga Yurub kulankooda waxay ku xuseen in xaaladda nabadgelyada ee ka sii daraysa ee gobolka Saaxil inta badan ay sababeen isku dheelitir la'aanta bulshada iyo dhaqaalaha, argagixisada iyo dambiyada abaabulan, taas oo xumaynaysa xaaladaha nabadgelyo. waxay mar kale xaqiijiyeen in si adag ay uga go'an tahay inay sii wadaan taageerada howlgalka xasilinta isku dhafka ah ee qaramada midoobe. waxay hoosta ka xaniiqeen baahida loo qabo ilo dheeri ah oo looga faa'iideysan karo howlgalka iyada oo la doonayo in la xoojiyo awoodooda si wax ku ool ah. sidoo kale waxay xaqiijiyeen taageerada ay siinayaan howlgalka galbeedka Afrika oo ay ugu baaqeen dhammaan daneeyayaasha iyo bulshada caalamka inay sidoo kale taageeraan ciidamada nabad ilaalinta iyagoo siinaya tasiilaadka lama maarmaanka ah iyo dhisidda awoodooda si ay ugu suurto gasho in si hufan ay u gutaan waajibaadkooda. midowga Afrika iyo midowga Yurub waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in wax laga qabto sababaha xaaladda sii xumaynaya ee Saxaraha iyada oo loo marayo habab dhammaystiran oo ay ka mid yihiin horumarinta dhismaha nabadda, dib u dhiska dalalkaasi colaadaha ay ka jiraan iyo sidoo kale ciribtirka argagixisada. waxay sidoo kale ay soo dhaweeyeen abuuritaanka isbahaysi loogu talagalay arrintaasna waxay dib u xoojinaysaa muhiimadda ay leedahay ixtiraamka xuquuqda aadanaha